Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Rabadaan kariim, daawadayaal soo dhawaada. Maanta waxaan inoo wadaa qiso. Qisadani waxa weeye dilaagii adduunka ugu yaraa. Ma rumaysanaysaa ilmo yar oo 8 jir ah oo geystay dilal aad u xun ilaa 7 jirkiisiina wax dilayay. Bal hadda aynu qisada guda galno. Wiilka qisadeenu ku socoto waa wiilkan sawirkiisa idiin muuqdo. Waxaa la dhahaa Amir Jeet. Waxa uu dhashay 1998. Waxa uu ku dhashay dalka Hindiya, meel la yiraahdo Bikasaria oo Bihar ka tirsan. Markii uu meesha ku dhashay ay xoogaa joogeen, reerkoodii waa ka soo guureen. Waxayna soo aadeen tuulo kale. Tuuladii kale sidii iskaga joogay iskuul baa lagu daray. Xoogaa markii iskuulkii ku jiray, aabihii oo ahaa oday aad u xun una qallafsan ayaa iskuulkii ka saaray. Wiilku wuxuu bilaabay inuu cuqdad u qaado ardaydii iskuulka dhiganaysay, walaalihii iyo dhammaan cid kasta oo markaa ku hareereysnayd, waalidkii xitaa lagu daree. Waxa dhacday in aabihii uu ku dili jiray oo kale isku kaadiga. Wiilkan uu isku kaadi jiray, aabihii mar walba waa dili jiray, keligiina ma ahayn isaga iyo walaalihii. Taasina waxa ay sababtay in wiilkan cuqdad nafsi ku dhaco, uguna dhaco dhammaan dadkii ku hareereysnaa. Waxa dhacday in 2006 uu walaashii oo 6 bilood jirta guriga oo laga maqan yahay intuu qaaday geeyey meel beera dhexdeedii. Kabacdii waa ceejiyey ilaa ay nafta ka baxaysay. Markii dambena waxa uu bilaabay in uu inanta la dhaco dhagax. Waxa dhacday in hadhow markii gurigii la yimi la doondoonay walaashii, la waayay walaashii. Inantii meeday, laakiin isagu ma sheegin. Cabaar ka bacdii wuxuu yidhi halkaasaan ku aasay, meeshii ku aasay buu u geeyey, wuxuu yidhi anaa dilay. Waxa dhacday in reerkoodii astureen oo yidhaahdeen uma sheegayno, booliska inankayga lama xidhaayo. Wuxuu noqday arrinkii arrin family. Sidii bay inantoodii ku aaseen. Ayaamo yar markii ka soo wareegtay, waxa uu misna dilay inan adeerkii dhalay oo 9 bilood jiray. Inankan adeerkii dhalay, hooyadiisa hurda ayuu guriga soo galay. Wuxuu qaaday inankii yaraa, wuxuuna isaga ku riday meel biyo xidheen ah oo gurigooda u dhoweyd, wuuna iska soo tagay. Isla sidii waa la ogaaday. Adeerkii buu noqday, misna waa la asturay. Wiilkan dilaanimada ugu weyn waxaan odhan karnaa waxa ka qayb qaatay reerkooda ama family-gooda. Waayo markii ugu horreysay haddii inankan ama dhakhtar caafimaad maskaxiyan lama caafimaad qabee la geyn lahaa, waxaasoo dhan ma sameeyeen, waa astureen. Waxa dhacday in ayaamo markii ka soo wareegtay uu isiri waa kuma qofka saddexaad ee aad dilaysaa. Wuxuu doorku waa inayna noqon family-ga. Inan yar oo reerkooda oo la odhan jiray Kushooba oo 6 bilood jirtay ayuu soo qaaday, hooyadeeda guriga ka shaqaynaysa. Inantii yareed wuxuu geeyey beeraha, ceeju naftii kaga saaray, dhagaxna waa la dhacay. Dhiiggii baa ku duulduulay, islaantii baa soo baxday, inantii bay weyday. Tuuladii oo dhan baa laga doondoonay. Dadna waa arkayeen markii uu faraha dhiigga ku lahaa oo soo galayay. Waxaana tuulada shaki kaga jiray walaashiisii yarayd, dalkii uu geeyey, waxba ma qarsoomaane. Waxa dhacday in islaantii u geyso booliskii oo tiraahdo inankaasaan uga sheekeeyey inantaydii, ha la soo qabto. Booliskii baa soo qabtay inankii. Inanka yar maba naxayo, ma qoslayo. Booliska indhaha saas ugu gubaya. Waxa la yidhi maadaa dilay? Haa buu yidhi. Wuxuu yidhi ka hor intaanan hadlin bal horta ii keena buskul. Buskulkii baa loo keenay, wax lisaad u dili jirtay. Wuxuu yidhi waxaan geyn jiray beeraha, waan ceejin jiray marka hore, marka dambena dhagax baa la dhici jiray. Aan ka ahayn inanka adeerkay dhalan isaga ku riday meesha biyo xidheenka. Lama xukumi karo markaa dalka Hindiya inan yar oo 8 jira. Dil iyo jeel toona laguma xukumi karo. Dhakhaatiir baa loogu yeedhay. Dhakhtarkii ugu horreeyay wuxuu sheegay in wiilkani marka uu cadhoodo uu wax dilayo, carruuraa dilayo. Misna dhakhtarka weyn baa misna loo gudbiyey. Halkaasuu ku jiray ilaa uu 18 sano ka gaadhayay. Haddaba waxaa jira khilaafyo la isku khilaafsan yahay. Dadka qaar waxay sheegayaan 18 sano markii uu dhammaystay in magac cusub loo sameeyey, noloshiisina uu halkii ka sii watay oo nin caadi ah oo dadka ku dhex jira uu noqday. Halka dadka qaar ay sheegayaan in wiilkan
2015 uu yeedhay saxaafadda una sheegay in uu ahaa ninkii caruuraha dili jiray ee yaraantiisii. Dad kale oo saddexaad ayaa iyaguna sheegay in ninkan bilo yar kabacdi markii halkaa ku jiray uu isdilay isagu laftigiisu. Markaa halkaa ayay ku dhamaatay qisadeenii. Allahumma najiina. Waa wax Ilaahay laga magan galo. Waan rajeynayaa inaad ka hesheen. Channelka subscribe saara, gambaleelka fura, fiidiyoyadana like saara. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.